waxaa la yiri yoolka iyo himiladu waa sida jacaylka oo kale waxay u baahan yihiin dulqaad iyo dhiiranaan si aadan u noqon mid ay qaadaan duufaanada isbeddelku. waxa uu ka dhashay qoys sabool ah oo ku noolaa tuulo dhacda baadiyaha fog ee dalkii uu ka soo jeeday. keligii taliyihii sheegtay ilaahnimada xilli ka mid ah xilliyada. waxa uu xilli hore oo noloshiisa ahba la soo kacay kalgacayl iyo jacayl baaxad weyn oo uu u qabay ciyaaridda kubadda cagta. dhaqaale yarida reerkiisa iyo cidlada tuuladii uu ku noolaa kama dhigin mid ka niyad jabagaaridda finta sare ee guusha. wuxuu waqti iyo dadaal ku bixiyey kobcinta hibadiisa, wuxuuna mar walba maanka ku hayay oraahda oranaysa hayaanka kunka mayli wuxuu ka bilowdaa tallaabo. wuxuu boos u raadsaday naadigii Zamalek ee ka dhisnaa dalkiisa, laakiin nasiib darro tababarihii naadigaasi wuxuu si qayaxan ugu sheegay inaanu ahayn naadigu xero kii rabaa uu soo galo, khibrad yaridiisuna aysan meelna gaarsiin doonin. laakiin sannado kooban uun kadib wuxuu ku casumay isla tababarahaasi garoonka naadi lagu tiriyo naadiyada ugu tunka weyn dalka Ingiriiska iyo caalamkaba, si uu u tuso in khibraddu aysan ahayn tan go'aaminaysa nolosheenna, balse dhiiranaanta iyo himiladu ay tahay tan inagu hagaysa guusha. muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaan ku soo qaadanaynaa sheekada shakhsi hantiyey qulubta malaayiin dadiyow oo kala diin iyo cirqi ah, ku kala suganna dhammaan daafaha adduunka, inagoo ogaan doona sida himilada iyo yoolku uga dhigay inankii yaraa ee shalay saboolnimada la ildarnaa mid u furta albaabada guusha iyo caannimada. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo ah Bari Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. محمد صلاح حامد oo loo yaqaan Mo Salah waxa uu ku dhashay 15kii bishii 6 1929 tuulada Besion ee dhacda Cariga Masar. maxamed xilli hore oo yaraantiisa ahba wuxuu la soo kacay hibo iyo jacayl xadaaf ah oo uu u qabay kubadda cagta. inkastoo tuuladii uu ka soo jeeday aysan caan ku ahayn kubadda cagta, haddana taasi kama dhigin mid ka taga hibadiisa, isagoo waqti iyo dadaal ku bixiyay yaraantiisiiba kobcinta hibadiisan. wuxuuna ka bilaabay ciyaaridda kubadda cagta naadigii loo yaqaanay Muqaawiluun al-Carab ka hor intaanu isku dayin inuu u wareego naadiga tunka weyn ee Zamalek oo ka mid ah naadiyada ugu caansan dalkaasi Masar. laakiin Salah wuxuu ku warhelay diidmo qayaxan oo tababarihii naadigaasi ku diiday inuu ku biiro naadigiisa, isagoo ku sababeeyey inaanu ahayn qof khibrad u leh ciyaaridda kubadda, taasoo ka dhigtay maxamed mid ka boqola dalkiisii hooyo una jihaysta Yurub, isagoo ku biiray naadigii Basel ee dalka Switzerland. tallaabadani ayaa noqon doonta mid Salah u furi doonta albaabada guusha xilli aan fogeyn. muddadii uu ku sugnaa naadigaasi wuxuu soo bandhigay Salah xirfad soo jiidatay Yurubiyaanka, isagoo muddo kooban gudaheed caan uga noqday masraxyada ciyaaraha goolashiisa qurxoon iyo xirfadiisa aan wax loo dhigaa jirin, taasoo ka dhigtay naadiyadii tunka weynaa ee Yurub kuwo hunguriyeeya xirfadda qurxoon ee inankan dalkiisii uga soo haajiray fursad la'aanta. wuxuuna sanadkii 2013 doortay inuu ku biiro naadiga caanka ah ee Chelsea, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Masri ah ee ka ciyaara naadigan magaca weyn. laakiin hore loo yiri gaaridda finta sare ee guushu way adag tahay, waxaase ka adag in lagu nagaado. Mo Salah ma noqon sidii laga filayay. xirfadii qurxoonayd ee uu naadigu u soo kaxaystay daraaddeedna wuxuu hoos u dhac baahsan ku yimid qaab ciyaareedkii Salah. dabcan sababta ugu weyn waxay ahayd in Salah uu yimid naadi tun weyn oo ay joogaan ciyaaryahano aad u waaweyn, sanado badanna ka ciyaarayay isla naadigaasi, khibrad weynna ku dhex leh, taasoo dhicis ka dhigtay riyadii uu ku riyoonayay inankan ka soo boqolay baadiyaha shishe ee Masar. maxamed markii uu muddo yar joogay naadiga Chelsea wuxuu u wareegay naadiga Fiorentina ee ka ciyaara dalka Talyaaniga. nasiib wanaag ma ahan Salah mid ku sii nagaaday isbeddelkii ku yimid qaab ciyaareedkiisa, wuxuuna ku guulaystay inuu dib ula soo noqdo qaab ciyaareedkiisii hore, isagoo sidoo kale waqti iyo dadaal badan geliyey wanaajinta qaab ciyaareedkiisa, taasoo ka dhigtay Salah mid u boqola muddo yar kadib naadiga Roma ee ka dhisan isla dalkaasi Talyaaniga. 2 xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa Salah naadigaasi wuxuu xarfad dahab ah ugu qoray magaciisa horyaalka dalkaasi, isagoo soo bandhigay qaab ciyaareed iyo xirfad aad uga yaabisay qof walba oo indhaha ku hayay. ka hor intaanu la soo wareegin naadiga Liverpool ee dalka Ingiriiska oo kula soo wareegay lacag lagu qiyaaso
lacagtii ugu baaxadda weyneed ee uu ciyaaryahan ku maalgashto naadigan dhiiggu sumadda u yahay. lacagtaasi baaxadda weyn ma noqon Liverpool mid ku khasaarta, maxaa yeelay Salah wuxuu muddo kooban gudaheed u bedelay naadigan mid ka mid ah naadiyada ugu guulasha iyo guulaha badan dalkaasi Ingiriiska iyo qaaradda Yurubba. isla sanadkiisii ugu horeeyay ee uu ka ciyaaro naadigan wuxuu kaalinta koobaad ka galay kala saraynta goolasha ee dalkaasi Ingiriiska, isagoo noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan dalkaasi. wuxuu u soo hooyay khasnadaha naadigaasi koobab iyo bilado sannado badan ay u oomanayeen, wuxuuna bilo gudaheed ku hantiyey quluubta iyo kalgacaylka malaayiin ku kala sugan daafaha adduunka. waxayna tusaale ay ku faanaan uu u noqday dhammaan dhallinyarada Carbeed oo helay halyey Carbeed oo ay ku daydaan malaayiin diimo iyo dhaqamo kala duwan xambaarsan. sidoo kale guusha Salah ma noqon mid ku koobnaato horyaalada Yurub, balse wuxuu ku soo noqday dalkiisa isagoo sabab u ahaa dib u soo celinta haybaddii iyo ciyaar wanaaggii lagu yaqaanay xulkan lagu naanayso faraacinta. wuxuu sanadkii hore ku guulaystay inuu sabab u noqdo in xulka dalkiisu uu ciyaaro koobka adduunka kadib 27 sano oo ay ka maqnaayeen. sidoo kalena gunaanadkii sanadkaasi wuxuu helay abaalmarinta midowga kubadda cagta Afrika ee ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa sanadkaasi. Salah ma noqon mid ku ekaada guulahaasi, isagoo xilli ciyaareedkii xigayna sii waday guulaha iyo abaalmarinada uu helayay, taasoo mar walba kor u sii qaadaysay shacbiyadda iyo taageerada inankan aysan caannimadu iloosin ilaalinta iyo dhowridda diintiisa suuban. Salah intii uu ku guda jiray hayaankiisa dheer ee uu soo galay gaaridda meesha uu joogo maanta, waxaa hubaala inuu la soo kulmay turunturooyin iyo guuldarrooyin joogto ah. markii uu dhallinyarada ahaa una baahnaa gacan qabashada, nasiib darro ma helin gacan qabashadii uu filayay, balse wuxuu la kulmay in laga soo xirto albaab uu u arkayay inuu yahay mustaqbalkiisa. laakiin turunturooyinkaasi kama dhigin mid isdhiiba bilowga noloshiisaba. wuxuu garowsaday in noloshu ay tahay sida kubadda oo kale, maalin aad badinaysid iyo maalin lagaa badinayo. wuxuu u jihaystay kobcinta naftiisa, wuxuuna garowsaday in guusha macaankeedu ay tahay inuu ku tiirsanaado naftiisa, isagoo go'aansaday inuu tuso qof walboo dhayalsaday riyadiisa in guushu aysan da' iyo sumatoona lahayn. waana midda uu sannado kooban gudaheed ku guulaystay kadib markii uu tababarihii shalay u diiday ka ciyaaridda naadigiisa u soo diray warqad yeeritaan uu ugu yeerayo inuu ka soo qaybgalo daawashada ciyaar uu lahaa naadiga uu ka ciyaaro Salah ee Liverpool, si uu u arko ciyaarta iyo meesha uu gaaray inankii uu shalay ka soo xirtay albaabada. guusha Salah marka laga yimaado inay kala siman tahay dhammaan dadka guulaha ka xaqiijiyay adduunkan dhabar adeega iyo dhiiranaanta, haddana waxaa hubaala inay kaga duwan tahay in Salah uu yahay diin ahaan iyo dal ahaanba mid nooga dhow dadka reer galbeedka ah ee guulaha xaqiijiyey. maxaa yeelay wuxuu ka soo baxay dal u dhow dalkeenna, faqriga iyo saboolnimadu ay yihiin sumad ay ka midaysan yihiin, sidoo kalena dhallinyarada hal-abuurka iyo haldoorka u saaxiibka ahi aysan ka helin gacan qabasho iyo dhiirigelin u qalanta. duruufahaasi iyo noloshaasi adag ee ku gadaaman ayuu haddana awooday inuu gaaro meel ay gaari waayeen kuwo badan oo ku soo koray bii'o tan dalkiisa ka quman. adiguna sidoo kale daawade waad awooddaa xaqiijinta waxa ka guuxaya maankaaga. guushu ma ahan inaan raacno waddooyinka ay mareen dadka guulaystay oo keliya, laakiinse waa inaan waaqac u beddelno riyada ka guuxaysa maankeenna, si walbo ay noola muuqato inay tahay mid ka gungaariddeedu ay adag tahay. si marka aynu xaqiijinno aan inagoo dhoola caddaynayna ugu dhahno nafteenna waan rumaynay riyadeennii ugu dambayn. si aad u gaartid tallaabadaasi waxaad u baahan tahay hal hub oo keliya, hubkaasi oo ah mid aan dagaalna lagu jabin karin. waana isla hubka Maxamed Salah ka dhigay mid xaqiijiye riyo ay mala awaal u arkayeen dadkii ku wareegsanaa xilligaasi, kaasi oo kaa caawin karaya inaad noqotid yegleelaha isbedelu adduunkoo dhammi indhalayaab iyo ixtiraam lehba ku soo eego. hubkaasi ayaa ah rajo, halka rasaasiisuna tahay himilo, dhiiranaan iyo eebbe oo aad tala saaratid.